بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد aamusade waxaan isugu kin yeedhay waxa weeye meeshan waata halkan khaliijkii waxaa ka dhacay khilaaf siyaasi ah oo lagu go'doominayo qatar haddaba dawlad baa Soomaaliya la yiraahdo aanu jaarnahay ayaa ina sheegata oo tiraaha Soomaaliya ana ka mas'uula mowqif buu gaadhay farmaajo wuxuu go'aansaday inuu dhexdhexaad ka noqdo markaa waxa igu soo dhacday wallahi maanta ictiraafka meel bannaan buu yaallaa haddaba kubaddii intuu inoo soo dhigay buu goolkii waa kaase ku laada markaa mowqifka uu qaatay mid ka bedelan baan doonayaa in Soomaaliland qaato waxaan doonayaa in kastoo mowqif wanaagsan yahay kaa u qaatay oo dhexdhexaadis ay wanaagsan tahay laakiin aniga in badan baa dawladaha carabta iyo islaamka iyo afrika iyo caalamkuba i go'doominayeen oo cidla igu oodeen oo saa ii soo egi waayeen markii waxaa ii soo damqatay dawladda la yidhaha imaaraadka oo dhulkaygu inuu aamin yahay oo degan yahay oo dhul wax la gashan karo uu yahay arkay oo maal gashaday oo dekadii noo degay oo saldhigna weydiistay oo noo ictiraafay inaanu nahay dad wax go'aansan kara oo intaasoo goor uu u tegey madaxweynayaashii ka horreeyey farmaajo iyo isaguba oo yidhaaheen naga daaya meeshaa aad tegaysaan annaga xukunee hataa xukuntaan kaaleya imaaraadku aan kasayna hataa xukuntaan berbere kaale aan ku kala seexanay may haddaba iska wata waxaa weeye anigu waxaan leeyahay dawladdii sidaa noo yeeshay mowqifka ay qaadatay baanu qaadanaynaa dhexdhexaadka Soomaaliya joogto ma joogsanayno haddaanu qaadano kay qaateen iyagoo nooga horreeyay Soomaaliya mowqifka ay qaateen haddaanu qaadano oonu ka farmaajo qaadano maamul goboleedada uu xukumo ayaanu ka mid noqonaynaa ee u aamusan oonu ka hadli weyno waxaan qabaa inaan la dayicin maanta ictiraafkii iyo gooni isu taagii oo u soo baxay halkaa oo barbarnaan soo taagay yaan laga baqanin oo laga haddii beedmayo laga baydhbaydhin ha loogu dhaqaaqo in la ictiraafo oo la yidhaaho annagu imaaraadku halkuu maro ayaanu ka mid nahay oonu marayna markaa waxaa lagu ogaanayaa in aan lagu xukumin aad ikhtiyaar leedahay haddaad se tiraha maanta kii farmaajo qaatay baan qaadanayaa madaxda Soomaaliland waxa lagu xamanayaa baa run noqonaya iyo daacad kama aha iyo halkaasaa laga xukumaa ayaa run noqonaysa waxaan leeyahay yaan la dayicin fursaddaa yaan la dayicin hadduu isagu halkaa qaatay halkuu qaatay meel aan hay waa inaanu qaadanaa Soomaaliland waxaan aad iyo aad u aaminsanahay haddaynu taa yeelo inaynu magac weyn iyo manfac weyn ku helno saasaan isugu kin yeedhay intaasaan doonayaa inaan geliyo miidiyaha oo aan idiin sheego